بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax biriq ayaan ku magac dheerahay waxaan ku dhashay Soomaaliya ayaan ku dhashay waxaan dhashay 1961 waxaan ku dhashay magaalada Beledweyne ومجال ذلك دم يكون وان كلا ومجال أنا يابو ذلك هي هين كل سكول ليبل وحكوا ذا مينش ذلك أنا أبين أذكر وأجري ذلك وأذكر يوبدنا أو الله بحرم ميليتري يقول نحارب بوليس كلو لو صار بحيه توبرك يحارب ميليتري لو بحيه توبرك يقول يجري لما جلاي يحارب الدراويش أنا كنت قلنا أنا عارفة عند قلنا كوش مركرنتي waxay ahayd magaalada kaliya dadka ay sameeyeen dadka noloshooda life style kan abiisu askari kan abiisu waa ganacsiyeyaal kan abiisu waxa wuxuu ka shaqeeyaa shaqooyin kale oo self employed runtii waxa marka dadka isku la wada dhigtaa isku dhar la qabaa dadka kama fikri jirin waxyaalaha hadda tirada badan la soo baxay dadka waxay ahayd dadka levelkooda oo sameeyay oo runtii aadan loo faraxsanaa oo waxa arkaysa marka aragto magaalada dadka waa wada faraxsan yihiin dad badan ayaa soo kornay maalintaan dhashay dad kale oo arkay ma jirto guriga aan dadkii aan dariska ahaan jirno oo dariskii xalaasha ah markaan fiiriyay labada dhinac inta waxay jiray reer Salaayax dhinacan kale waxaa laga jiray reer Xujaale reer Weheliye Siyaad Mari Xaaji Cilmiyo naga soo horjeeday marka dadkii aan wada ciyaari jirnay kubadana dad aad u tiro badan ay ahaayeen waliba xaafadeen dad badan wada ciyaari jirnay gobolkii dad badan wada ciyaari jirnay Hiiraan marka loo fiiriyo xaafadeena dad badan ayaa ciyaari jiray oo gobolka aan u ciyaari jirnay oo aan ku soo baxnay xalana waxaan ku dhisnay jirnay meel ceel jaalle runtii 76 ayaan bilaabay ciyaarihii ugu horeeyay ardayda waxaan kala qayb galay ninkii ugu horeeyay nin hadda joogo Hargeysa oo yiraahdo Xasan Waraaba Cadde ayaa number wuxuu ka dhigi jiray 7 number 9 ciyaar jiray ciyaarihii ugu horeeyay ardayda college ayuu ka dhigin jiray Beledweyne runtii dad fara badan oo waliba waxa u badnaayeen kooxda reer Buuburti u badnaayeen anaga Beledweyne xoogaa ku yareen oo gaduudo iyo marka la fiiriyay Axmed Cali Shire Cabdulqaadir Adawaa Maxamed Muumin Maxamed Beer marka runtii aad iyo aad Beledweyne Cawil Aadan Jiis Cabdulqaadir Gaarane rag badan oo fara badan ayaan gobolka waxa kabtan oo aan kala dhigi jiray Ongoy Cabdiraxmaan Daaris Nool runtii Maxamed Beer ayaa sanadkii kabtan oo ah runtii dad fara badan oo gobolka oo markaas degmada ka tirsanaa ayaa wada ciyaari jirnay gobolka oo runtii aad iyo aad ku soo baxnay meesha ayaan ku bilaabnay والله horta runtii dadkii horta waaya hore ayaa noogu dambeysay oo anaga muddo dheer ayaan ka maqanahay Soomaaliya ilaa 30 sano ah Beledweyne runtii xaafadaha marka hore waxay ahaan jirtay 7 xaafadood hadda waxa laga dhigay 4 xaafadood oo coaching xaawataako iyo Buundooyin Holwadaag awal waxay ahaan jirtay Buulo Khayr Xidigta Irid Aamin Buulo Xabli xaafadda xoog la dhigi jiray Buundooyin iyo xaafadan Holwadaag todobadaas ay ahaan jireen anagu ku soo barbaarnay aan ku soo ciyaari jirnay rag fara badan xaafadaan ciyaari jirnay runtii marka Irid Aamin aan ciyaari jirnay Buundooyin waa la ciyaari jirnay runtii aad iyo aad rag fara badan oo Irid Aamin ka tirsan ciyaari jirnay oo hadda halka aan ku soo koobi karin runtii waxaan isku golaas ahayn iskuulka nin la yiraahdo Cabdulqaadir Guuleed Cawaale waxaan isku golaas ahayn gabdho badan sida Ruqiyo Samarood Marin Abikar Jamiil Cabdi Xayuuke Dayfa Sheekh gabar la yiraahdo Fawzi Ciise Kays wiilasha Cawil Aadan Jiis Ganay nin la yiraahdo Maxamuud Aadan Ibraahim Baadi Ismaan Xasan Cabdullaahi Xaashi Ismaan Dhuux Sakuuti wiilal badan Maxamed Cilmi kaaf magaalo weyn ahayd marka loo fiiriyo dadka deganayna dadka la gedisanay haddii aad aragto aad hal u soo qaato waxa isku ahay ma jiraan nin kasta meel kale gooni nin kasta meel kale ka tirsanay hadda waxa hadda qabiil loo bedelay si loo bedelay ma aysan jirin dad walaal ahaayeen isku meel ku soo koreen waxa horumarka keenay waxay dadku way isfahamsanaayeen oo aad iyo aad magaalada horumariyay waxay ahayd aad iyo aad dadka inay u diyaarsanaayeen inay wax u qabtaan oo wax qabashada ay aad iyo aad u horumari jireen runtii aniga dad badan macallin u soo noqday iskuulka Buundooyin wiil iyo gabarba rag badan ayaan macallin u soo noqday marka runtii waxaa kamid ah General Mukhtaar ayaa kamid ah Mukhtaar Xuseen Afrax Faarax Cabdulqaadir nin la yiraahdo wuxuu ahaa Dr. Jabaax niman badan fara badan oo Beledweyne Buundooyin qaar fara badan iskoolka Wadaag gabdhii wiilba hadda ma soo koobi karo maashayeen iska badan yahay runtii meesha gobolka hadda la yiraahdo oo gobolka gubernatoora oo degan yahay xafiiskiisa u yahay ilaalo ciidan la deganaan jiray
aabbe ku jiri jiray runtii meeshaas ayaa calanka lagu saari jiray oo maaragtay sandaha aa la dhihi jiray waagaas talyaanigii meeshaas ayaa calanka lagu saari jiray waxaan xasuustaa calankaas marka la saarayo maalintii oo dhan ilaa habeenkii ma saaxan jirin ilaa anaga waa yareen ma gaari karin markaasaa intaan jiifano oon soo kacno meesha bannaanka calanka lagu saarayo ilaa 6 saac calanka laga saarayo aan sugi jirno runtii ciyaaraa la qaban jiray waxaa la qaban jiray waxyaalo kale oo tartama ah oo sida maaragtay orado sida kale kuma lagu ciyaaraayo sida waxyaalo badan la sameyn jiray oo waxay aad maalin la wada sugi jiray oo kooda luuli waa aad iyo aad u mareyn kartay runtii aad iyo aad maaragtay rajada aad ay u fiican tahay oo dadka sidii horta waagii hore ay ahaan jirtay sagaashamayadii iyo horta aad iyo aad ugu fiican tahay waa hadda wadan madaxweyne leh oo diyaaradda geys oo airport loo dadka systemka uu shaqaynaya weli inkastoo weliba si fiican inkasii fiican oo sii socda inkastoo bilowga markii laga soo bilaabay sidaan ma ahayn dadaa soo qaaday meel la geeyey waa la soo qaaday haddana meesha kale la geeyey waa isku soo noqon wixii nool adduunyada ee Soomaaliya ha noolaato adduunyada